Bismillah kusoo dhawaada xarunta waxbarashada Irmaan Educational Center. Halkan waxaan ku qaadanaynaa 10 jumlado sentences waa jumlado ama hadallo. Haddaba haddii aad ku cusubtahay page-kiina follow dhaha cashka la garay siina share garay. Jumlada koowaad waxaan leenahay the rooms were full of people. The rooms were full of people. Qolalka dad ayaa ka buuxay. Are you good at math? Are you good at math? Xisaabta ma ku fiican tahay. I'm not interested in sports. I'm not interested in sports. Ciyaaraha ma xiiseeyo. Sue is married to a dentist. Sue is married to a dentist. Maxaa dhaynaa Sue waxaa guursaday dhakhtarka ilkaha. It was kind of you to help us. It was kind of you to help us. It was kind of you to help us. Waxa ay ahayd naxariistaada in aad na caawiso. He is always very nice to me. He is always very nice to me. Asaga aad ayuu igu fiican yahay mar waliba aniga. Do you like traveling by train? Do you like traveling by train? Ma jeceshahay inaad tareen ku safarto? You can't get there by car. You can't get there by car. Halkaa kuma gaari kartid gaari. Please don't go without me. Please don't go without me. Maxaan leenahay fadlan ha bixin aniga la'aantay ama ha iga tegin. Was the train late? Was the train late? Tareenku ma daahay. I don't know much about cars. I don't know much about cars. Maxaan dhaynaa gawaarida wax badan kama aqaano. We jumped into the water. Waxaan ku boodnay biyaha. Haddaba ma doonaysaa inaad ku barato luqadda Ingiriiska qaab sahlan? Haddii jawaabtaadu haa tahay, Irmaan Educational Center wuxuu bixiyaa 4 buug oo isfasiraya muuqaaladooda. Haddii aad danaynaysid nagala soo xiriir WhatsApp numberka halkan kaaga muuqdo furaha 53 mahadsanid. We walked from the hotel to the station. Waxaan lugaynay hotelka ilaa boostejada. Don't put your feet on the table. Maxaan dhaynaa ha saarin cagahaaga miiska dushiisa. Don't fall down the stairs. Maxaan dhaynaa ha ka dhicin jaranjarada. The office is on the first floor. Maxaan dhaynaa xafiisku wuxuu ku yaalaa sagxadda koobaad. Write your name at the top of the page. Ku qor magacaaga qaybta sare ee page-ka. My house is at the end of the street. Gurigayga waxa uu ku yaalaa dhamaadka wadada. There are a lot of apples on those trees. Maxaan dhaynaa tufaaxyo badan ayaa ku yaalo geedahaas. Don't sit on the grass, it is wet. Ha ku fariisan cawska wuu qoyan yahay. The cat is under the table. Bisadu waxay ku hoos jirtaa miiska. The girl is standing under the tree. Gabadhu waxay taagan tahay geedka hoostiisa.
I'm staying at the home tonight. I'm staying at home tonight. Waxaan joogaa guriga caawa ama caawa waxaan joogaa guriga. Do you come here on the bus? Do you come here on the bus? Halkaan baska miyaa ku timaadaa? Halkaan baska miyaa ku timaadaa? I'll meet you at the station. I'll meet you at the station. I'll meet you at the station. Waxaan kugula kulmi doonaa boostejada. Waxaan kugula kulmi doonaa boostejada. Don't forget to close the window. Don't forget to close the window. Ha hilmaamin inaad dariishada xirto. Ha hilmaamin inaad dariishada xirto. I often feel asleep when I am reading. I often feel asleep when I am reading. Inta badan hurdo ayaa qabato markii aan wax akhrinayo. Inta badan hurdo ayaa qabato marka aan wax akhrinayo. They went home after they did the work. They went home after they did the work. Waxa ay aadeen guriga kadib markii ay qabteen shaqada. Waxa ay aadeen guriga kadib markii ay qabteen shaqada. I always have breakfast before going to work. I always have breakfast before going to work. Markasta waxaan quraacdaa ka hor intaanan shaqada aadin. I always have breakfast before going to work. Maxaan dhahaynaa markasta waxaan quraacdaa inta aanan shaqada aadin ka hor. I lived in London for a year. I lived in London for a year. Waxaan London ku noolaay sanad. Waxaan London ku noolaay sanad. Haddaba haddii cashirka ka heshay like saar page-ka follow soo dheh siina share garee cashirka. Sidoo kale haddii aad doonayso afarta buug oo isfasiraya muuqaaladooda inagala soo xiriir WhatsApp number halkan kaaga muuqdo waa mahadsantahay.